waa 6 bisha koobaad sanadka 2025 halkani waa Brit Somali TV kusoo dhawaada barnaamijka falanqaynta siyaasadda caalamka oo wararka ugu waaweyn ee caalamka ugu xiisaha badan alaabadii kugu soo koobno qodobada barnaamijkan idinku hayna daawadayaal waxaa ka mid ah xoutiyiinta oo sheegay inay maraakiibta dagaalka ee Mareykanka ay weerareen Israa'iilna ay markaa duqeymo ka geysteen xiisadda Iiraan iyo Israa'iil oo cirka isku sii shareeraysa dagaalka Ruushka iyo Ukraine iyo waliba North America iyo Soomaaliya ayaanu qaybta dambana taaban doonaa haddaba si aanu arrimahaas wax uga ogaano waa kan falanqeeyaha weyn ee siyaasadda caalamka injineer Axmed Abdidoon oo barnaamijka mar kale marti noogu ah waqtigiisa looga mahad celinayna boqolkiiba boqol injineer si gobonimada usoo dhawo ummadda Soomaaliyeed waxaan kaaga hayaa saqiir iyo kabiir ba inta nala soo xiriirtay siyaasiyiin sharaf karaamo iyo markaas cizi ay ku hayaan falanqayntaada kala duwan iyo sida aad mar walba uga faallootay arrimaha caalamka iyo tan dalkeenaba soo dhowo aad u mahadsantahay cabdixaafid waa ku salaamaya salaam diiran oo kaliya laaba daawadayaasha qiimaha iyo qaayahalina sidoo kale waa soo dhoweynayaa sidii caadada noo ahaydba aniguna waa dhowa aad iyo aad injineer haddii aynu usoo noqono bariga dhexe iyo Soomaaliya aynu ku bilowno marka hore North America waxaynu la soconaa ra'iisul wasaarihii dalka Canada Justin Trudeau inuu iscasilay Mareykanka laftigiisa arrimo fara badan ayaa ka socda xal kuwaas muxuu isku casilay oo sababay arrinta bismillaahi raxmaani raxiim waa mahadsantaa mar kale runtii ra'iisul wasaarihii waddanka Canada waa iscasilay meesha waxaan fadhinayaa ilaa iyo cidi bedesho meesha la keena ayuu laga soo warinayaa inuu iscasilo waxyaabo badan ayaa ugu wacan sicir barar aad iyo aad u baahsan oo dalka Canada soo food saaray iyadoo oo runtii mowqif aad iyo aad u foolxumo badan oo dalkaas ka istaagay arrimaha bariga dhexe oo ay ku taageereen Israa'iil xasuuqa foosha xun ay bariga dhexe ka wado waxaa ka mid ah inuu mataqaanaa dagaalkii hindiya dadka hindiya dhexdeeda kooxihii isku haystay loo soo raray Canada dhexdeeda oo amni darra ay jirto waxyaabo fara badan inuu dalkii xataa wadi kari waayo maalintooda maqlaysay Donald Trump oo leh isaga soo biir meeshaan maaragtay annagaa maamulayna waddanka maamuli kari maysaane waddan baaxad leh bay haystaan oo barwaaqo leh oo haddii ilaahay idinka leeyahay mataqaanaa waxa ilaahay gudahiisa dhigay ay dunida barkeed ku filan yihiin haddana wax buu maamuli kari waayey waxaa muuqata caajis baa ka muuqda waxaa ka muuqda inuu mataqaanaa ku fashilmay gebi ahaanba waxyaabihii uu ballan qaaday inuu dadka reer Canada u qaban doono taas ayaa keentay inuu maantay cimaamadiisi ka qaato kana huleelo meesha laga taliyo waddanka Canada waayahay injineer Mareykanka laftigiisa arrimo fara badan ayaa ka socda Donald Trump waa soo socdaa maxaynu wara ka haynaa Mareykanka laftiisa dood cusub baa hadda ka bilaabatay oo ninka hadda aqalka hoose loo magacaabay iyo senatorka aadku afka dheer ee mataqaanaa Graham Lindsay la yidhaahdo ay maaragta hadallo isku weydaarsadeen senatorkan wuxuu leeyahay waa in aan canshuur dhaaf iyo dhaqaale iyo waxaas aan lagu mashquulin maaragtay ciidamada qalabka sida iyo hay-adaha amniga loo adeegsado in la qaxiyo dadka sharci darrada waddanka ku jooga oo uu leeyahay malaayiin bay kor u dhaafeen ninkaasu waa dhaarsan yahay wuxuu leeyahay in waa muhiim in xuduudkana lasoo xiro hadda asaga laftiisu faamilkiisu qaxootiga ku yimaadeen waddanka ogow meeshaan meelay leeyihiin maaha laakiin fikirka siyaasadeed labada garab ay ku kala duwan yihiin ay ka mid tahay qolooyinkan la yiraahdo Donald Trump taageeraya ee xag jirka ah conservative-ka neoconska ah waxay aaminsan yihiin in ay muhiim u tahay Mareykanka inaan caddaanka laga tira badan sida hadda wax ku socdaan hadday ku socdaanna in dadka cad laga tira badan doono laguna xukumi doono dalkan iyaguba markoodii hore boobka iyo dhaca ku heleen
oo ay iska xijinayaan dadka kale gobolka guud ahaan gobolka America hadday tahay dhinaca koonfur waqooyiga ka soo gelaya marka taas ayuu xoogga saaraya halka ninka aqalka aqalka sare aqalka hoose ayraada raalaw ka ah hogaamiyaha uu leeyahay ma garanaysaa waxaan rabnaa in cashuur dhaaf la sameeyo in dhaqaalihii dib loo habeeyo in mataqaanaa wax laga qabto macaashadda in maaragtay dadka dabaqadda dhexe ah la kobciyo uu halkaa ka hadlayo marka waxaa muuqata dagaalkii qolada xukunka qabsatay ayaa hadda bilowday ay ku dagaalamayaan horta xaggee fooda la saaraa ma arrimaha dibaddaan aadnaa oo dagaal ayaan dibadda u aadnaa ma gudahaan aadnaahoo mataqaanaa dadka aan sharciga ku joogin baan iska bixinnaa oo laleeyahay tiradooda wax la qiyaasi kara maaha mase dhaqaale abuur iyo inaan maaragta wax kobcinna ayaan ku mashquulnaa doodaas ayaa iyaduna hadda ka bilaabatay maraykanka tii donald trumpna waa sugaynaa injineer waa gartay aad iyo aad kaga mahadcelinaya daawada qodobo waaweyn oo muhiima noo soo socda ay ka mid yihiin xiisadda iiraan iyo israa'iil u dhexaysa dagaalka ruushka iyo ukraine balse markaan haddii aynu xuutiyiinta aadno injineer barnaamijkan xilliga aan duubayna 40 daqiiqo ka hor ayay xuutiyiintu waxa ay sheegteen inay maraakiibta dagaalka ee maraykanka mid ka mida ay beegsadeen casqalaan oo israa'iil ka tirsanna markaas ay weerareen maxaynu kala soconnaa weerarkan soo noqnoqonaya hafidow nimanka lagu magac daray xuutiyiinta la yidhaahdo yaman reer yamneed runtii dagaal aad iyo aad u culus ayaa lagula jiraa maalmihii lasoo dhaafay duqayn baa lagu waday ingiriiska iyo maraykanku iyo israa'iilba waxay ku wadeen inay maaragtay waxa ay hadda la duqaynayaan waa meelihii shacabka maaha meel hadda military oo toosoo la duqeeyaaho ma ay hayaan xuutiyiintu waxay sheegeen in ay qabteen weliba war aad iyo aad u cusub weeye inay qabteen basaasiin fara badan oo xaggaas iyo ka soo galay waddanka sacuudi arabiya basaasiintaasoo ah basaasiin ingiriisku isku soo dubariday iyadoo la qabtay soo saareen oo video laga soo duubaba la soo saaray runtii dadkaas waxay ahaayeen dad loo soo carbiyey la doonayay xogo inay raadiyaan meelihii la duqayn lahaa in la soo ogaado sawaariikhdan dheereeya oo uu u caal waayey difaacii cirka israa'iile caalamku wixii difaac cirka joogay yaalla la isugu geeyey haddana loo caal waayo maaragtay waxba laga qaban kari waayey in ma garanaysaa la soo ogaado meelaha ay gantaaladu yaallaan meelaha lagu kaydiyo meelaha laga rido qalabka lagu rido meesha laga ridayo meelaha ay yaallaan waxyaabahaas baa la doonayaa xoga ah waxaa muuqata wax xog ahba inaan laga haynin dalkaasi oo awood u yeeshay in dadkii reer israa'iil ay harsan waayeen hoyana waayeen habeen walbaba mataqaanaa godad bay ay maarata waagu ugu baryaan maaragtay waa habeen kasta hadde ayaa hadda wiish ku yeeraa waa la garan la'yahay meesha ay sawaariikhdan laga soo ridayo waa la garan la'yahay qaab loola tacaalo iyadoo taasi jirto ayaa haddana sidaada adiguba aad carabka ku dhufatay ay sheegeen xuutiyiintu inay weerareen maraakiibta maraykanka oo doonaya bay yidhahdeen inayna soo duqeeyaanan ka war helnay taas qudheedu waxay ku tusaysaa in sirdoon fiican oo shaqaynayana ay leeyihiin ma aha keliya inay waxooda xafitaan oo ay maaragtay dagaalka qayb ka yihiin iyadoo haddeertaan ay runtii ballan ku qaadeen maalintii dhood markii aeroboorka la burburiyey markii mataqaanaa towerka aeroboorka laga burburiyey caalamka xataa dacwad baa loo gudbiyo meesha waxaa jooga wafti WHO mataqaanaa ayaa joogay garoonka oo lafahooda la kala cararay oo lagu weeraray marka su-aasha la isweydiinaya waxay tahay meesha tan waa meel maaragtay shacab waa civilian object sababta loo baabi'inaya maxay tahay meel gantaal ka dhacana maaha meel mataqaanaa cid dad kale loogu adeegayo oo cuntadii soo degi lahayd iyo waxaas loogu adeegayo marka waxaa muuqata
qolooyinkan la dagaalamaya qudhoodu inaanay xaquuq insaan iyo shacab iyo wax ay u abayeelayaan iyaga laftooda aysan jirin oo ah wixii ay dadka maaragtay 80kii sano lasoo dhaafay loo sheegayo lalahaa in la ilaaliyo maaragtay dagaalada waxyaabaha ka mamnuuca ah in waxyaabihii ay dadka ku lahaayeen dagaaladiiba meel uga dhacdeen in ayagii samaynayaan hadda oo afkii juuqda gabay wax la sheegana la garan la'yahay iyadoo weliba guul laga gaari waayey daxaafka hagaag injineer haddaynu halkaas uga baxno xoutiyiinta iyo weeraradaas dhinaca kale waxaynu la soconaa xiisadda iiraan iyo israa'iil inay cirka isku sii shariirayso donald trump uu soo socdo iiraan diyaar garow iyo tababaro ciidan intaas ay ku jirto netanyahuna uu il ku haya gaara halkaas maxaynu kala soconaa xiisadda haatan cirka isku sii shariiraysa runtii cabdixafidow khudbad uu hadda akhriyey madaxweynaha waddanka faransiiska wuu ku soo qaatay inkastoo khudbaddiisu ay u badneyd dhinaca ruushka iyo ukraine haddana wuu ku soo qaatay arrinta iiraan ishaa lagu hayaa maalin dhowata waxaan daawadayaasha la wadaagnay in wadamo saddex ah ingiriiska faransiiska iyo jarmalku ay wada hadallo u socdaan iyo iiraan waxa uu ka digay in loo socdo ama loo jihaystay amaba ay soo dhowdahay xilligii iiraan nuclearkada aan waxba laga qaban karin oo xadka ay ka baxi lahayd arrintaasu waa arrin dhiilo xambaarsan waxay dhiilo u xambaarsan tahay dee iiraan oo markii horeba maaragtay maraykanku uu ballan qaaday inaanu marnaba aqbalaynin iiraan oo nuclear samaysata israa'iil ay saasoo kale ballan qaaday waddamada reer yurubna ay fikirkaas la qabaan inaan iiraan marnaba laga aqbalin inay hubka nuclearkaas samaysato haddana iiraan waa waddanka keliya ee aan nuclear haysan tayeyntiisana 60% gaarsiiyey ma jiro waddan aan nuclear haysan oo tayeynta uraniumka gaarsiiyey puritygiisa 60% gaarsiiyey ama sifayntiisa ama maarata tayeyntiisa in nuclear laga sameeyana waxaa loo baahan in 90% la gaarsiiyo marka waa dareemi kartaa wax u haray wax weyn ma aha dadka qaar waxay leeyihiin wayba samaysteen oo way gaarsiiyeen ilaa 90 dadka qaar waxay leeyihiin hadday damacdo oo cali qamaani oo ka qaado fadwada oo ugu fadwoodo yiri mataqaana nuclear ma samayn karno ma ogolin oo diintuna ma ogola fadwadaas hadduu ka qaado waxaa la leeyahay 2 asbuuc 3 asbuuc ka badan ku qaadan mayso inay dhowr ilaa 10 xabbo oo nuclear ban ay samayso marka way haystaan culuntii way haystaan maaragtay cilmigii way haystaan aaladihii iyo materialkii oo dhan way haystaan way u fududahay inay markaa ay waxaan la leeyahay marnaba ka aqbali mayna inay samaysato waa u fududahay dadka qaarna waxay baa leeyihiin oo nimanku waaba haystaane maxaa la isu daalinayaa runtii iiraan maalmahanba waxaa u dhaaranayay israa'iil dood aad iyo aad u ballaaran oo iiraan ku saabsan ayaa israa'iil ka dhex socota hadda doodaasu waxay tahay dadka qaar baa waxay qabaan in haddii iiraan la burburiyo la weeraro dhulka la dhigo in caqabadahan kale ee bariga dhexe ayba iska damayaan oo yaman iyo waxaasoo dhan ay dhammaanayaan waxay leeyihiin maska madaxiisu tehraan buu yaallaa injineer halkaasaan kaa dhex galo sababtoo hadda ka hor netanyahu maraykanka ka yiri maska madaxiisu waa sadaam xuseen oo bariga dhexe barwaaqu noqonaya haddii sadaam la burburiyo halaagii ka dambeeyena waa ognahay cashar lagama barta miya waa runtaa waa laga ogyahay maraykanka oo dhan waa og yihiin in israa'iil ay rabto inuu dagaal geliyaan maraykanka arrintaas iyaduna waa dood kale oo furan runtii waa in la ogaadaa israa'iiliinta ama dadka u dooda AIPAC nimanka la yiraahdo oo asalkoodu yuhuudda yahay ayaga ayaa xildhibaanada keena
ninka ay qofka ay rabaanna ninka ama gabadha ay rabaanna way ka tuuraan meeshoo lacag bay ku bixiyaan ilaahay baa lacag siiyey dhaqaale aan xad dhaaf haystaan cidda ay rabaanna way soo geliyaan taas waxay marka keentay inba la yiraahdo labada aqalba ee Mareykanka majoritygoodu nimankaasi u shaqeeyaan Mareykanka uma shaqeeyaan taas way tan maaragtay runtii u sahasha Israa'iil inay ku dagaal tagto maaragtay Mareykanka oo u fuliyo laakiin dan arrinta bariga dhexe u soo noqdo runtii arrinta Iran xasaasi taaganta meel aad iyo aad xasaasi ay taaganta waxa kaloo jirta iyadana arrintan xabad joojinta maalmahan oo dhanba la hadal hayay meesha la yiraahdo Gaza oo si foolxumo badan shacabka loo leynayay oo maaragtay isbitaaladii la burburinayay wax hataa maaragtay dhulka lala wada simay mushkiladda meesha taagan marka waaba laga heshiin lahaa leeyahay hataa xabad joojin waa la samayn lahaa hal mushkilad baa meesha taagan oo waxba laga samayn kar la'ay mushkiladdaasina waxa weeye waa Netanyahu haddii maantay ay bilaabato in maxaabiis la isdhaafsado waxa la leeyahay waa bilowgii dhammaadka siyaasadeed ee Netanyahu taasna weeye tan wuu og yahay isaguna waa inuu marka ku dagaalamaa in aan wax maxaabiisana la isdhaafsan dagaalkuna iska socdo xataa dadkii Israa'iiliinta waa yaaban yihiin dagaalkan aan dhammaadka lahayn ujeeddada aan lahayn wax lagu gaaraya aan la arag oo dadka la iska laynayo xataa dadka maaragtay yuhuudda dad fara badan oo dadka reer Israa'iila waa u cuntami la'ada qaasatan dadka maaragtay aaminsan in la soo daayo dadkii sanad iyo bar ka hor la qabtay ilaa welina ku jira gacanta Falastiiniinta cabdixaafid وحقاق انجينير سوماليا قضبا ينوصل سعودة وكوبرا ديلا إلى هذا بلس انتا كهر روشكا إي يوكرين لفتقود وحيسدود واقع سنتهي دقال قواسيلة بالجبار ميا حقيا وحمريا روشكا إي يوكرين ورنتا دقالكو سيحاولي وكو السعودة دي آدو ديرين إيا وحال ليهي روشكو وليه رصعد بالصمين إيا وصعد كدي دينكا maalin bacad yar uu qabsanayaa baa la leeyahay degdeg ma hayso wuxuu ku kalsoon yahay ruushku inuu saas uu hadda ku socdo hadduu ku socdo uu mar dhow kaga biyo keenayo qabsanayana dhulka uu doonayo inuu qabsado runtii xagga ruushka warar kalaa ka imaanaya oo sharuudo cusuba kadib markii hogaamiyaha Ukraine oo Mareykanka ka codsaday in ma garanaysaa dagaalka joojintiisa ay ku xiran tahay wax hadhow ruushka ka celiya in loo baahan yahay ruushku sharuudo cusub uu keenay oo dhowr ah oo mar walbaba ay lagama maarmaan tahay in ma garanaysaa lagu wada xaajoodo qodobka ugu horeeya ugu muhiimsan wuxuu yahay in ay Ukraine mustaqbalkooda ay noqoto dal neutral oo aan military bloc ama mataqaana gaashaanbuurna aan maaragtay ku xirnayn waa inuu dal aan military ahayn uu noqdo maaha keliya dhexdhexaad inuu noqdee dal aan military lahayn gebi ahaanba inuu noqdo dal aan nazi iyo dadka maaragtay xag jirka Hitler aad u taageera inaanay dalkaa ka jirin iyo inay aqbalaan xaaladda runta ee dhulka taalla oo ah dhulka oo ruushku qabsaday ku biiray ruushka waa siday u dhigayaan hadalka dhinaca ruushka Russia ku biiray in aysan wada xaajood iyo wada hadal geli karin ugu dambayn in wax alla wixii cunaqabatayn ahaa ee ruushka la saaro meesha laga bixiyo qodobo noocaasa ayuu ninkii Putin ahaa meesha la yimid hadda waxaa muuqata maalinta ka dambaysa shuruudihiisu waaba kasii cuslaanayaan kuwii hore kuwii 2 sano ka hor in la qaataaba ka fududayd waxa maanta yaalla
waxaa isaguna ka hadla arrintan madaxweynaha faransiiska wuxuu aad ugu booriyey Ukraine in ay xaqiiqada wajahdo hadalkaas uu ku celceliyey Ukraine inay xaqiiqada wajahdo waxa uu ka wadaa inay xaqiiqada wajahdo waxa weeye waa in arrin dhuleed laga hadlaa buu yidhi Ukraine waa inay dood gashaa ay arrin dhuleed ka hadlayaan inay dhul waynayaan inay isku qanciyaan waxaa marka muuqata hadda ka horna waa taabanay Ukraine dhul weyn oo ballaaran ba ayaa ruushku la tegi doonaa dhulkaasu 4 gobol waa horaa loo iclaamiyey ruushku ma 4taas gobol buu ku ekaan doonaa mase sharuudahan aan soo bandhignay 5 sharuudood oo isdaba yaalka laftoodu dhulka isagu ruushku wuxuu leeyahay dhul muran dhul iyo waxaas maba imaan karaan waxaan ka hadlaynaa waa 5 sharuudood oo xabad joojin lagu samaynayo heshiis maaragtay amnina lagu kala sayaxanayo arrintu waxaad u malaysaa inay tartiib dhinac u badanayso ninkii Zelenskyana Ukraine ceelka uu ku riday inaan laga soo saari karin mar dambe ayaa muuqata injineer aad u mahadsantahay gabagabadii iyo gunaanadkii arrinta kiiska badda Soomaaliya mid dhammaanaya uma eka aad baa loo hadalhayaa dowladda Soomaaliya ma waxay iyadu doonayso raalli ka tahayba ayaga iyo Ethiopia waxa ka dhaxeeya iyo heshiisyada la galayo mise waa mid lagu khasbay oo waa dowlad taag daran oo cidlo laga eedeynayo waa su'aal aad iyo aad u fiican Cabdixaafid runtii arrimaha Soomaaliya markii laga hadlo Cabdixaafid horta jawigiigu waa isbedelaa shucuurteeduna kor bay timaadaa naguna sideena horta caadigaana ma nihin dad ama dowlad diid ah ama dowlad mucaarad ku ah ma nihin annagu mar walba kuwa dowladda u hiiliyaanna garabka dowladda taagan aaminsan dowladnimada saas waxaan leeyahay markaan dhaliilaynana dowladdaan u hiilinaynaa markaan ammaanaynana dowladdaan u hiilinaynaa runtii marka ay arrinta Ethiopia timaado dowladda waa u hiilinaynaa waxaan leenahay arrintaa laga joogo maantay wax Soomaali ku qasbaya inaan niraa cid baan baddeena gorgorta kula gelaynaa ma jirto annagaa kala daadsan Soomaaliya waxay u baahan tahay arrimo ka waaweyn inay heshiisyo badeed waddan Ethiopia oo ujeedaday leeyihiin aan ognahay inaan maaragtay heshiisyo la galno waxyaaba ka waaweyn oo nooga xanuun badan oo ka muhiimsan baa noo yaalla Soomaaliya waxay u baahan tahay Cabdixaafidow dib u heshiisiin guud ay u baahan tahay meesha la kala taagan yahay waa la ogyahay Soomaali baana waxba nooma kala qarsoona Jubbaland wixii amaale ayaa dhowta ka dhacay waan ognahay haddana waxaan maqlaynaa Ethiopia ciidamay u qalabaynaysaa hub iyo waxbaa looga soo daadguraynayaa xan ah ayaan maqlayaa anugu wixii xaqiiqaha waa imaan doonaan laakiin Soomaali ismaxan mooga dowladda federaalka madaxweyne xasan sheekh maxamed uu madaxda ka yahay iyo Puntland halka la kala taagan yahay waa la ogyahay iyadana waxaan kaloon ognahay Somaliland iyo mataqaanaa dowladda federaalka halka la kala taagan yahay intaba waa la soconnaa laakiin haddana fursado waxaa jira waa haddii dee fursadaha loo soo jeesto lagana dhinacna la iska dhigo bad baa heshiis badeed cidaan la gelinaa iyo badda annaga iskale marka aan diyaar u noqonno oon awooddood leenahay ayaan heshiis ku geli karnaa ma aha in annaga nala jajuubo ma aha in gardaduub inta naloo qabta la yidhaahdo qasabaad ku bixinaysaan turki annaga baddeenna inta qaadato Ethiopia ma siin karto Ethiopia intay ciidamo soo kaxaysato baddeenna ma degi karto haddaanan annagu ogolaanoonan albaabada u furin oonaan dhihin mataqaanaa wada xaajood iyo wada hadal ayaan ku gelaynaa haddaanaan dhihin ma samayn karaan anigu kulle waxaan kula talin lahaa hoggaanka dalka
barnaamijkaas meel isaga tiiriya oo xilligeeda ha loo daayo wayba imaan doontaa xilligeeda ha loo daayo xilli aan intaan kana taagroonnahay aan cidna tatajin karta iyo cid qoortana qaban waxaa la sagaare qoorqabad biyo kuma cabto inaan sagaare kama liidano inta qoortana qabto na cabsiyada wax macquul oo aqbali karna maaha anigu waxaan leeyahay in mataqaanaa la dagaalanka argagixisada iyo heshiisiin guud la dagaalanka argagixisada in lala dagaalamo iyo in lala heshiiyo labadaba waa la awoodaa kuwii aasaasaa dowladda ku jira oo diinta noo haya hadda kuwii aasaasay waxaan ayaa dowladda hay-addii diinta madax ka ah nimankii waa la hadli weynena macquul maaha lalama hadli waayin waan ka adkaan weynaa xabadan la dhici weynena macquul maaha iyadana waa in labadooda loo yimaadaa iyagaa nooga muhiimsan baddeennoon cid gorgortan kula galno qodobka ugu dambeeyana waxa weeye in aan ilaa soomaali iyadu ay horta lugaheeda isku duwato oy dhinac salaad u wada tukato aan waxyaabaha masiiriga ee dhulka iyo badda iyo cirka iyo hawada ah aan la taaban oo dhinac la dhigo intaas waxaan rabi lahaa inaan ugu nasteexeeyo xukuumadda federaalka hadday samayn waayaanna dee waa ku dhaliilayna waa ku macaaradayna taas macnaheedu maaha inaan dowladnimada nacabna ama diidannahay laakiin waxaan leenaha waa dariiqii qaladka ah ee ka soo noqda oo soo aada dariiqa saxda ah oo soomaali dib loogu heshiisiin lahaa soomaali dib wax u wada qabsan lahayd dowladnimo la samayn lahaa loo dhan yahay oo aysan noqon bahashu madaxweynuhu bahal uu tuurta ku sito oo marba meel la aado oo mataqaanaa kula heshiiyo dowlado shisheeye ama ha ahaadaan kuwa gobolka ama ha ahaadaan kuwo kale oo mataqaanaa aan gobolka ahayn cabdixaafid injineer waa kuu mahad celinayaa hadallada qiimiga badan iyo sidaad u falanqaynaysid iyo sida ay kuu dhibayso arrimaha soomaalida ku saabsan iyo dalkeena iyo xaaladda aynu maanta ku sugannahay shaki kuma jira insha allahu tacaala inuu iftiin baxayo maalina aynu ka bixi doono gobonnimadeeni iyo sharafteeni ay soo noqon doonto daawadeer idinkuna waa mahadsantihiin injineer waa mahadsan tahay barnaamijkeena intaasuu ku egyahay